العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. runtii waa gabagabadii weeye nin hadalkiisuna xoog badan yahayna waa iga horeeyay oo waxa laga yaabaa hadalkayga inuu noqdo maaragtay gabayaa miihi laakiin xoogaa waa yara akhriyaa gabayada hadalka intiisi nuxurka lahaa waxa sheegay dadkii iga horeeyay ee kala duwanaa xoogaa yar waxaan ku yara darahayaa macnaha tuduciyo yar oo collection ah oo sifihii sayidka macnaha yara tilmaamaya xagga maamulka macnaha sayidka markii la eego muqaddamada ama ragga mas'uuliyiinta ah daraawiishta uu magacaabay uu ixtiraami jiray dacwooyin badan markay uga yimaadaan ma abuse jirin ninna gooni uma caabi jirin markii dacwooyinka iyo muqaddimiinta dhexdooda ay ku badatay hal mar ayuu wuxuu ugu soo daray tuduc gabayga la yiraahdo mawdku ka adeegi laba muqaddimo madaxa oo wada maqaawiira mar hadaysa kala maaransan oo kala maqaamaysan maamulaadka reerkiyo xeerka mawdku ka adeegi macnaha waa tuduc maaragtay murti badan leh mas'uuliyiintu haday iska hor yimaadaan dastuurkii iyo nidaamkii bay u gudbaayaan macnaha xagga ahsaanka sayidka 10 sano oo horeysay xoogaa socod qabow ayuu daraawiishta ku waday 10 dambana gabay buu tiriyay la yiraahdo saha kacay sababaha keenay kaasoo reason u ah 10 dambe sababta ay ku dhacday macnaha in uu dardar galiyo macnaha nidaamka daraawiishta marka ahsaanka xagga ahsaanka markii la fiiriyo tuduc hadaan ka soo qaadano maandhow ihsaan lagama tago eed hadaad faliye maandhow ninkaad iniqdo waa ku ogolaadaay maandhow nin ku daran ninka durugsan baa kaaga daran oo macnaheedu iidana yahay ninka walaalka oo Soomaaliga oo dugaaga kugu noqdo u dabci waxa kaaga daran ninka ajnabiga shisheeyaha dhinaca aqeedada sayidka daraawiishta markuu aasaasay macnaha isaga mabdiisu wuxuu ku salaysnaa kufri nacayb iyo gumaysi nacayb ku salaysan aqeedada islaamiga ninkii daraawiishta ku soo biiro qabiil looma nisbeen jirin waxa loogu yeeri jiray darwiish ninkii aan ku soo biirinna waxba looma raacan jirin laakiin ninkii daraawiishta lid ku noqdo ama mucaarado xoogaa sayidku u gabi jiray ama uu macnaha la dagaali jiray xagga aqeedada tuducdan ka soo qaatay waxa weeye rabbaa deeq leh roob baa qabow raaxa nabad baa leh raxmaan baa barya leh raacis nabi baa leh rabid shareeca leh run baa fiican been baa rufacan raran adaab baa leh xagga martigelinta sayid kool hadda ka hor nin ka badbaadiyay shirqool wiiluu dhalay baa u yimid waxa la yiri wiilkii hebel oo dhintay baa yimid gabaygo dhan ma wada sheegayo laakiin wiilka soo dhaweyntiisa wuxuu ka yiri ala koodsha oo wiilkayu agab la'aan sheegan afka wuxuu ka dooniyo wuxuu uurka ka raba siiya ninkii loo ihsaan falaba inaq u dheeraysiya sayidka xagga midnimada ummadda macnaha gabayo badan buu kaga hadlay laakiin tuducdii calan gube ninkii calanka gube caligii difaaciyay markii gaalada la siiyay aad buu arintaas uga gubtay uuna ka daba tagay runtii taasna geeraar gabaygu markuu oohin uu yahay geeraar buu isku bedelaa ninka gaalka la siiyay talyan loo garba duubay markab guudkii la saaray gacal soo ma lahayn gabayga ma wada hayo wuxuu ku soo gabagabeeyay middan midnimada ah dhirtu waa laba geedo waa galoolo isdhaafayo mid hadii la gunguumo kan kala godol noolba godin loo rabayaaye waxa loo gabanaya alla soo ma garataan
tobankii sano hore sayidka markuu saa ku soo waday hadalka waa dheereeyay raalli ahaada markii dambe gabaygan la dhaho saha kacay sababaha keenay ayuu sayidku uu tiriyay ummadii salaaf iyo haday isaga la roorayso haday saacideen gaaladii sarac keenay sallallahu nabigi hadii sawjar laga doortay saraakiisha dhowr kale hadii lala sarxaamayo suwayd ban safkii ahay hadii sawdkii lagu yeeray sanku neefla oo idil hadii saafi laga waayay oo aan samaan laga helin si xilla mooyaane mar inaan dantay seego waa igu siloonaane Soomaali waa niman suunka ka gooyo niman saabka ka toogta iyo niman saabir ka yeelo waa mahadsantiin. Wassalaamu calaykum warahmatullahi